السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale iyo janalka Cabdinaasir Guusha fadlan muuqaalka dad ku cusub tahay share garay la sii wadaag saaxiibadaada like garay muuqaalka si dad badan u gaaro muuqaalkan maanta dul istaagi doonaa mas'uuliyadda waxa ay ku saabsan tahay iyo arrimaha mas'uuliyadda qoliyaha shaydaamada la shaqeysta ee caabuda mas'uuli waa tahay caalamka hadda ka socdo nin baa TikTok soo fariistay wuxuu yiri mas'uuli ayaa tahay hebelaaye ma la qabtaa hadalkaas bal سميحة خليل آد أيان أوضا إن أي كم تهاي كوحدة إشياء أما الشياطين تضدك أي كوشا قيستان ضد بدلو يوتيوب راه معان أياتشر لكن ولي قد أنا صدقي أورورين المساكين تا أنرضا قرنين الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف وحاوليها أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون سميحة خليل كوحداس أي كوشرتا إيش اللي يراهدو أو حي مقرني ساي لشقي ستا الشيطان كيس كنا فيها فرحة لكسوروغي سادريس لإنه كور قبيني يدو مقرني سا كوحداس هاي كان الله يعلم لكن وحا وضان تاي من كور قبين هدي وبارنا وغان دور طبعا هدان فكرة قد كبحينو وقوليو عابدو شيدامدا وانا قوليو سيابو بدن dunida intooda ugu faafiya hamigoodana waxa uu yahay in dunida ay qabsadaan isla markaana ay dunida cirif ilaa ka cirif fikirkooda ka shaqeeyo ha noqoto inay dadka marin habaabiyaan ama fikirkooda ku shubaan iyo inay sidoo kale ugu faa'iideystaan xagga dhaqaalaha oo ay dhaqaale badan dadkaas ay ugu sameeyaan si heesahooda iyo barnaamijyadoodaba inta badan marka ay fikrad faafinayaan waxay dadkooda ka soo maraan dhinaca ay isleeyihiin shacabka isha ay ku hayaan sida shirkadaha waaweyn dadka caanka ah sida ciyaaryahanada jilayaasha fanaaniinta inta badan waxa ay diiradda saaraan dhinaca heesaha sababtoo ah dadka inta badan waxa ay u badan yihiin dhinaca heesaha marka la raadiyo sirjinjinka waxa u badan heesaha taban waa dareemi kartaa habka qofka ama fanaanka ku soo xirgeliyo qaabkee waay waxay tahay waxa ay tusaan nolol aan weligood qofka ku riyoon nolol khiyaali ah nolol qurux badan nolol safaro badan oo meelo kala duwan ah baabuur kala gadisan in maalin kasto TV-yada kusoo hordhoobtaan views aad u fara badan malaayiin ah in aad aragtid oo adiga kugu saabsan dabcan shaqsi kastana ma qaataan waxay qaataan shaqsiga hibada leh ee hal abuurka leh ee codka macaan heesaaga ah ayay qaataan shaqsigaas markii uu ku biiro heshiis ay kala saxiixdaan dabcan heshiiskaas waxa uu noqdaa mid in badan jiro laakiin qofka heshiiskaas galay ma ahan heshiis uu ku sii jiri karo badanaan heshiisyada ay galaan dadku way ku qiyaanaan qofkii oo aad iyo aad shaqadii diyaar u ah oo imaaday laakiin heshiiska markuu rabo inuu saxiixo dhoola cadeyn badan iyo farxad badan meesha abuuraan qofkii heshiiskii asoo waraaqada fiirinin ayuu saxiixayaa dabcan markaas ayay imaataa in qofkii uu ka shalaayo xaalad kalena uu galo sidaas darteed mas'uuli ayaa tahay qof hebel inaad ku eedeysid weliba Soomaali ah shuruudo badan ee leedahay mas'uuliyaddu ma ahan wax iska fudud dadkiina waxa waaye waxaad moodaaba in qof hebel la yiri ku tur hadalaada hubin dad meel u heenin waa qalad gabar ayaa zina hada ku qadafto afar markaati keen lagu dhahay qof dan muslim ah inaad dahdid mas'uuli ayaa tahay oo weliba dinka baxa halis waa